السلام عليكم مدن جان بول. عليكم السلام. horta mudane Jean Paul intaynaan u guda gelin su'aalahan ku soo diyaariyay maanta bal horta dadka dadweynaha inta aan ku aqoon isku sheeg. wallahi runta iska fiican anu horta Jean Paul bala reer Djibouti Jean Paul iska yaqaan markii ciidamadu ay ugu soo tuureen gurnaad markaba aydiyaas xaqiiqaanka ururkiina xaqiiqaanka markaba la ogaaday inay xagan rag joogoon oo eriga xitaa xaqiiqaanka reer Djibouti ma aqoon laakiin imika aad iyo aad buu dhooxeen waxayna fahmeen xaqiiqaanka inay siyaasiin ahaan laakiin inay rag runta sheega maamulka sida loo maamulo arka oo farta ku fiiqaa ninkii dambiilaha. waad mahadsantahay mudane Jean Paul. su'aasheeda labaad waxa weeye halkay maanta maraysaa xaaladda xuquuqul aadamaha ama xuquuqul insaanka ee dalkeenii hooyo. wala xagee marayso ilaa 1999 markuu Ismaaciil Cumar uu boobe doorashada Muuse Axmed ka boobe waayo Xasan Gule ayaa ka dhiga inantiisii ciidamada u sii gare oo ilaaliyo soodka xala Francisco hala usurpation de pouvoir marka ayaanu ku anfacane urkii markaa baan sameynay markaaba urkii addiyaas ayaan sameynay waayo waqooyigeena dhanka afarta dad bal u gaarsanay dad bal dilay cunto churches iyo dawooyinkii loo diiday Francisco waxa lagu lahaa genocide dembiga baa la galay sida dadkii markaa qasab ay nagu hadina hawsaan sameeyno oo koorka mucaaradka iska dhigo deputy baahan jiray 20 sanadood imikana waxa ahay hawsaan ma asxaabtay waan shaqeynaa wixii foolxumo aragno ma qarno waan sheegnaa ilaa maanta xaalada hawsaanka aan Djibouti dib u ku tumanaya tasuultii buu ku tumtay untari masaakintu ku lumtay dawooyinkii sidaaga la soo diray ayuu afka u dhigtay wax kastaba boob iyo xaga bulacbeed kala maqlayo waxa ka daran ba isaga. waad mahadsantahay. su'aashii saddexaad baynu gudbaynaa hadda marka maanta waqti aanu joogno taariikhdan maanta aanu joogno ma jiraan dad u xidhan arrimaha la xidhiidha siyaasadda ama xorriyadda qowlka oo magaca kari suuriga magacda waa inaan Djibouti aan joogo waayo qaar kale la xidhay ayaa maqlay rag hore baa jiray afartii la oran jiray waxa hubbe haystay taa waan joogay oo marka xabsi ka soo baxay ayaa si fiican u baaray waxa ay jandarada wuxuu qabteen mid baa iri hub ayay haystay marka waxa weeyaan runta fiican raga maxkamad hub hadii siteen hubka wato maxay u siteen taana isweydiino hubka maxay u siteen maargoso siba marka adigu lagu dilo habeenii maalin lagu garaaco reerkaaga la dilo dad kale la afduubo kuwa kale la waayo adeer marka maxaa ku haray ilaah baa jiray. waad mahadsantahay. marka waxaad noo sharaxday xuquuqda insaanka arrimaha la xidhiidha halkay marayaan waxa markaas weydiin leh ma isku dayday Jean Paul adiga ama intiina sidaas oo kale u halganta arrimaha la xidhiidha xuquuqda insaanku inaad gacanta u haadisaan oo aad isku dayda la gashaan wada hadal xukuumadda meesha ka talisa Ismaaciil Cumar Geelle. wallahi Ismaaciil Cumar Geelle Djibouti markaan joogay muftahiga Soomaaliya ma taqaan muftahiga buu doonay am qof fura ana qofka imaada waxaan ku lahaa adeero Ismaaciil Cumar shakhsi ahaan waxba kama haysto laakiin waan shamaan iska tago si degdega way dad badan buu dilay luuki buu boobe dadkii abaad buu geliyay imkana lacag kale u rabaa anu waxa ma garanaye intii goorta anu waxa ii daran waa ummadeeda oo nabadgelyo hela ardaydii Djibouti oo iskoolkooda si fiican u hela oo daasado nido suudul fariisan anu caafimaadkii la xaday sidaaga imka kuwii sidaaga Djibouti qabay Ethiopia tagaasi isku soo duwaya Ethiopia ba habashii ba naga wanaagsanoo cuntadii iyo raashinkii iyo dawooyinkii loo keeno dadkii sakradaha dibada looga keeno ma taabsado waxa kale malawey booba laakiin cuntadii iyo gaajadii iyo dawooyinkii ya laka ma fargeliyo marka runtii gacan u fidiyo ama israacno
anigu muku socdo ha way dhici kartaa inaa markaa hay alusala sidii berigii xasan guleed waxaa lagu leeyahay odaygii baa kuu baxay waxaa wallahi odaygu markuu meesha iska tago anigu waa casumi doonaa markuu ka dhaadhacina warqad baa u qoro waxaa ri bifadlag xaggan baa hormartaay aramus baa ka timaada hormartaay ba kaale xagga waayo television ka sheegay imka dadku waan dhegeysan karaa lee kaalena dhegeyso baa rabay inaan kula marka isagu markuu ka socdo waa markaa waan wala hadli karna laakiin horta cagaha wax ka dhayo waad mahadsan tahay su-aashii shanaad waxay noqonaysaa hadda maxay ku sugan tahay xaaladda guud amba gaar ee axsaabta mucaaridka ee dalka gudihiisa ka howlgala horta mucaaridku Djibouti markaan joogno mucaaridku isku duubayna laakiin mid baa ka maqan mucaaridku hadduuna haysan urur ka hooseeya oo amarka siiyo oo urur qarsoon haddaynay jirin meel lama gaarayo waayo marka madaxda la qabto hooshii weyna ururkaa qarsoon uu wado haddaa rasaas dadka lagu sugo ururkaa qarsoon waa inuu isaguna go-aan gaaro anuu hadalkaama intaaban kusoo koobaya waad mahadsan tahay markaa waxaa jira hadii goorle dalkeenu hooyo dalal badan aynu walaalnahay oonu darisnahay baa ku hareereysan mid kamida ayaa hadda xaaladiisu aad ay xun tahay oonu ka aragnaa telefishinada iyo adeecadaha adduunka waa dalka idhaha Soomaaliya xaaladiisa maxaad ka og tahay waayo waxa la xidhiidha qudheeda arrimaha xuquuqul insaanka anigu xawiisaanka caadi waxaa ku jira urur afrikaana oo anigana waxaa laga dhigay mas-uulka geeska africa waxa weeyaan Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Djibouti. Kenyana marmar bayna soo dhex gashay oo arrimaha Soomaalida kama foga runtii arrinta koonfur Soomaaliya ka dhacaya arrinta la leeyahay islaamiis al-shabaab xisbi islaam waa dad xagga ku xiran anagu waa xitaa Mareykankana waan sheegnaa waa bad ragga waa rag u halgamay wadankooda raba inay ka saaro ciidamada shisheeye Burundi iyo Uganda oo ilukuba Mareykanoo lacag ka siisay taa waxayna wacada laakiin mid baa in sheegay shirkii Nations Unies markii ugu horeysay tii ugu dambeysay uu ka sii danayd wuxuu soo bandhigay anagu waan ka qornay taa waa cambaareen wuxuu leeyahay waa in la xasuuqo genocide reer xamar sida kaliya laga bixi karo dadka waa in la xasuuqo nin marna laha Soomaaliland jacayl iyo marna leeyahay waa in la xasuuqo iyo waaleeyahay haddii waaleeyahay daktarada loo yeelo la geeyo Ismaaciil Cumar Geele okay waan fahmay waad mahadsan tahay Jean Paul